Paris waa caasimadda iyo magaalo ay ku nool yihiin dad badan oo u dhashay dalka Faransiiska iyo caalamka intiisa kale. waxaana lagu qiyaasay dadkeeda 2,148,271 qof oo ilaa iyo laga soo bilaabo qarnigii 17aad. Paris waxay ka mid ahayd xarumaha ugu waaweyn ee Yurub ee dhaqaalaha, diblomaasiyadda, ganacsiga, moodada iyo sidoo kale sayniska iyo farshaxanka. magaalada Paris waa xarunta iyo fadhiga dowladda France ama gobolka Paris oo lagu qiyaaso tirada rasmiga ah ee la sameeyay sanadkii aynu ka soo ambabaxnay 2020 dadka ku nool 12,278,210 ruux ama qiyaastii boqolkiiba 18 dadka reer Faransa. gobolka Paris waxa uu lahaa GDP dhan 808 bilyan sida lagu sheegay warbixin sanadkii 2017. marka la eego qaybta qiimeynta nolosha adduunka ee sanadkii 2018, Paris ayaa ahayd magaalada labaad ee adduunka ugu qaalisan marka laga reebo Singapore oo waxaa ka horeeyay Zurich, Hong Kong iyo sidoo kale Oslo iyo Geneva. ilo kale ayaa ku qiimeeyay Paris sida ay ugu qaalisan tahay iyadoo lala simay Singapore iyo sidoo kale Hong Kong sanadkii 2018. Paris waxay qaabishay 38 milyan oo marti ah sanadkii 2019 oo lagu cabiray joogitaanka hoteelada, iyadoo tirada ugu badan ee ajaanibta soo booqata ay ka yimaadeen dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka iyo Shiinaha. waxaana lagu qiimeeyay inay tahay safarka labaad ee ugu booqashada badan adduunka sanadkii 2019 kadib Bangkok oo wax yar uun ka horeeyay London. magaaladan waxay leedahay wadooyin tareen ah oo waaweyn iyo wadooyin kale oo caadi ah iyagana baaxadoodu ay aad u weyn tahay oo aanan ciriiri ahayn, iyo sidoo kale xarunta gaadiidka cirka oo ay ka shaqeeyaan 2 garoon diyaaradeed oo caalami ah. Paris waxaa si gaar ah loogu yaqaanaa madxafyada iyo sidoo kale astaamaha dhismaha, iyadoona ay booqdeen 9.6 milyan oo qof. si kastaba ha noqotee, tirada booqashayaashu waxay hoos u dhacday 72% ilaa iyo 2.7 milyan oo soo booqdayaal ah sanadkii 2020 aynu ka soo ambabaxnay sababta la xiriirta fayraska COVID-19 iyo sidoo kale hoos u dhac ku yimid tirada shisheeyaha ee booqda dalka Faransiiska. magaalada Paris waxaana inta badan dadku ay yihiin kuwa indhahoodu ay ku doogsadaan goobaha quruxda badan ee leedahay. haddaba warbixinteena aynu ku eegaynay magaalada Paris ee dalka Faransiiska wanaagaynta. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow subscribe.